xafladda dabaaldega dhalashada boqorka Ingiriiska oo markaa lagu qabtay Hargeysa. Ma markii ugu horeysayba dhalasho boqor Ingiriisa oo markaa gobolada waqooyi loogu dabaaldegayo. haddaynu dib u eegno taariikhda halkan waxa weeye 1955 oo markaa magaalada Burco lagu qabtay xaflad dabaaldeg military oo markaa lagu dabaaldegayo boqorada Ingiriiska dhalashadeedii. sidaas leeg hogaamiyaashii ciidamada taliska markaa haystay gobolada waqooyi khaasatan magaalada Burco iyaguna markaa ka soo qayb galay dabaaldega dhalashada boqorada Ingiriiska. sidaas leeg 1953 markii la calaamay saaray boqorada la dhigi jiray Elizabeth, ciidamadii waqooyiga laga qaaday Somaliland Scouts ayaa markaa la geeyay London iyagoo hogaaminaya nin Hindiya margiye weyntii oo markaa dabcan gobolada waqooyi gumaysiga ku jireen iyadoo la leeyahay markaa kale u dabaaldega dadkii idin gumaysanayay calaamasaarkooda. marka calaamasaarkii iyo dhalashadoodii waxa loo dabaaldegi jiray wayna ka qayb gali jireen markaana dabcan dee wadanku gumaysigu ku jiray. laakiinse waxa ayaan daraa markaa in ummadda Soomaaliyeed xora in loo dabaaldego dadkii iyaga markaa gumaysan jiray. dhalashada kaliya maaha, sidoo kale qubuuraha ciidamada Ingiriiska ee ku yaala Hargeysa iyadoo markaa lagu qabanayo xafladda markaa loogu baroor diiqayo dagaalkii labaad askartii kaga dhimatay Ingiriiska. markaa dad la garanayana ay ka qayb galeen. marka maadaama dadkan Afrikaanka ay yihiin dad musiibis kaga dhacday maskaxiyan loo gumaysto, haddana aafada ugu daran waxa weeye markaa in dadkii ay xusaan amba ciidamadoodii amba boqoradoodii dadkii iyaga ma garanaysa ay gumaysan jiray. intaaba waxaa sii dheer maanta haddaad eegto xafladda waxaa lagu qabtay xafiiska Ingiriiska ee Hargeysa markaa deeq-bixiyayaasha dadka waxaan la dhaho hay'adaha mashaariicda bixiya. marka haddaad eegto waxaad moodaa in markaa dadka madowga lagaga faa'iisto badiba baahida oo markaa xagga sare ay xor ka yihiin laakiinse maskixiyan ay markaa weli silsiladihii gumaystuhu ay ku xidhan yihiin. haddaad halkan eegtana 3 kelmadood baa ku xusan oo markaa looga jeedo partnership iyo progress iyo prosperity oo markaa ah wada shaqayn, horumar iyo barwaaqo soor. oo markaa hay'adahan waxay bixiyaan maaha runtii barwaaqo soor waxa weeye gunno amba waxa la dhaho tabarucaadkaasoo markaa lagu qarinayo oo la leeyahay amba loo bedelayba barwaaqo soor. markaa tabarucaadkii aynu naqaanay baa waxa la leeyahay dadka madowga loogu sheekeeyaa inay tahay barwaaqo soor iyo horumar. marka waa qaabka markaa gumaysiga cusub. haddii berigii hore gumaysiga nooca kale uu ahaa, dunidan casriga gumaysiga ka socda waa noocaas. waana ta keentay markaa isku soo wada duubo in markaa la xuso dhalashada dadkii gumaystayaasha welina la sii hayo raadkoodii.